doonayna aan kusoo dhaweyno microfonka in gudoomiyihii hore in ururka siisa mudane cabdiraxmaan rashiid kusoo dhawo gudoomiye gudoomiye doorashadan maanta iminkood xilka wareejinaysay 3 jeer baa la qabtay talow maxaa sababa la oran karaa inaad 2 jeer aad isku dhibco noqotaan ninkii kula tartamay gudoomiyaha haata imkaan horta 3 jeer baan isku dhibco noqonay oo qoladii gudiga doorashada wadiga arkay 3 jeer baan waa markii ugu horeysay oo heerka la gaaro taa waxa oran karaa wax qabadkayga oo horumarka siisa uu ka mid yahay in heerka ka gaaro oo liis eriyado oo xilka oo bariga hore siisa sida ma yahay jirin waxay aan jirtay in qofku marka doorashada marka la qabto xubno ay ku wadiga kay xubnihiina maanta ay la kala safteen labada gudoomiye oo markii lagu kala dixwaay lagu celceliyay oo markii dambaan tarqi ku kala baxnay marka waxa oran karaa waa horumarka anagu munalaso gudoomiye ma oran kartaa in waxqabadka maanta ururka u qabatay in taageero badan aad ku mutaysatay saana ay ku dhacday in kooxda mucaaradka isbahaysigu ay aad la dhibco noqoto 2 jeer waa kun taageero fara badan baan haystaa oo iminka way ku jiraan oo taageerayaasheedu horma way badnaayeen waa tii ahmeen iminka dee gudoomiye maxamed oo kale olole uu waday sida tii Ingiriiska 70 ba olole ku jiray oo sidoo aan ka dhawaajiyay ma arkayba oo mar qura muu fariisan meel ma qaar waxaan maqlay isagoo la codadka buu iibsanaya oo lacag ku fagaray gaaraya aanu markaa waxa dadka sameeyay waxqabadkaygu ma noo iibaha waxqabadkaygu ma noo iibaha markaa taageerada aan noo hayaan xubnuhu aan noqdaan kuwa sareeya kuwa hooseeyana way badnay ma la oran karaa in gudoomiye isbahaysiga mucaaradku ka soo horjeeday aad buu xoog banaa kaasoo waxqabadkaagii dadkii kugu taageeray ka yar codbatay ha waa la oran karaa isbahaysigu horta wax xooga mulahayn anaga ka xoog badnayn si maadaama anagu aan muddo dheer soo shaqeynay waxaan isla uga nafta iyaguna bal waxay qabtaan oo lagu tijaabinay gudoomiyaha haatan muddooyin badan buu soo qabtay mana dhicin badanka gudoomiyaasha xilka kusoo noqday ururka siisa adiga iyo gudoomiyaha haatan weeyaan maxamed Soomaali ma la oran karaa ururka siisa doorashada labada gudoomiye badanka kusoo noqda waa labadiinan maanta un tartamay hawa la oran karaa wax kale ugu ma soo noqnoqonaa waxaan ku soo noqnoqonaa siisa horta dadka qofku wax qofku bay doorataa marka labadeeda wax qabad ayaa kulli aad u fiican aniga gudoomiyaha la doortay wax qabadeeda fiican marka waxay siisa uga maarmatay xubnaha kale ama gudoomiyaasha hore soo maray kamid ah Cabdullaahi Ahmed Ridwaan Maxamuud Diiriye Cabdiraxmaan Muuse Ibrahim Diiriye intaas oo dhan labadeeda waxay nooga doorteen waxa la oran karaa wax qabadkayga arkeen marka wayna kala xulanayaan wayna kala nasinayaan marmalay marka waa sidaas gudoomiye ma la oran karaa dastuurka idin yaala ama xeerka u yaalo ururka ayaaba sheegi kara malaa in gudoomiyaashiina soo noqotaan maxay ku dhici weyday in ururka intiisa kale ay tartanto waa taxantahay horta xubnaha intooda kale waxay tartami waayeen waxaan hab weeye qofkii awoodo un baa tartami kara waxaan waa hawl culus ka culus ta dawladaha marka qofkii awoodi kare awooda walahumba ayinba tartami kare laakiin qof aan awoodi karin oo shuruudo badan ayaa ku xidhan oo ay noqdo qofku luqadaha wax ka yaqaanaday Soomaaliga tay Ingiriisiga haday tay Carabiga haday tay Chinese-ka haday tay Hindiga haday tay luqad kale waa inuu qofku yaqaanaa marka xubnaha kale qaarkood in marka laga reebo ragga waaweyn ay kamid yihiin maxamuud Jaamac Ahmed Ridwaan Maxamuud Diiriye Cabdullaahi Ahmed ragga marka laga reebo oo iyagu hawlo kala malaha ku mashquulsan intooda kala kala bad ma awoodaan luqadaha iyo deynay intaas oo dhan oo karfiya ay karaan marka dadku taas u sheegaya marka waa sida gudoomiye waxqabadkaaga soo liiska akhriisa mar dhaweed wuxuu ahaa waxqabad badanka muuqday sidee u dareemaysaa gudoomiyaha haatan maanta ku guuleystay doorashada hada gudoomiyuhu wuxuu muddada dheer ku xilka soo hayay oo aniga la dhigay markii wuxuu ahaan jiray ninka muddada ku faani jiray laakiin waanu la dhignay marka muddada xilka hayay qabad uu qabtay waxa kamid ahaa in waxna soo kordhiyo ay waxna ka iska dhimaan anagu waxaan soo kordhino mooy horta xafiiska ma kaayay dhimin marka waxaan ugu rajaynayaa ninkaas shaqo fiican inuu qaban doono siisaba waa taa doorto dadka kamid doorteen haddaan wax qabanahay marka kii waxa la looyay inaan soo fuliyo ka aroorino marka siisa waa isdikaasha ay soo fulinaya marka anaguna inaan sanada sharciga abadiga oo iskana aad iyo aad baad baaqsantay wuxuu ahaa gudoomiyihii hore ee maanta xilka wareejinaya mudane Cabdiraxmaan Rashiid Dalmar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.